بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa reedo qabuuraha codka qiyaamaha ee adduunka guudkiisa aad naga dhageysanaysid waraadiyada naga waxaan noo sharafa maantay horta ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhair waxaan ahay caaway wax dhanbaad waxaad igu barateen abwaan ama safiir ama culimo caaway waxaan ahay Don King promoter ka maaragtay Mike Tyson iyo kale waxaan isku keenay laba heavyweight donkey ninka maaragtay oo maaragtay sponsor gareeya ama se iib geeyo ninka maaragtay boxerka oo feeriyahanka sida Mike Tyson iyo kale ee ku magac dheer Don King ninka timaha dheer oo cirada leh caaway anigu boosishkayga waa kaas waxaan rabaa cabshire feelingkaaga inaad ka waranto dad badan waxa la yiri gacal meeshay doontu waxay moodaa meeshay ay ku xifaaltamayaan inay ku dirirayaan dood waxa jirtay hadda koor aan saddexdeedu ka qayb galnay maadaama anigu aan xiriiriyahay marka mar raba inaan ka hadlo feelingkaaga iyo dareenkaaga ama ummadda Soomaaliyeed iyadoo maanta maalin farxad leh ciil ay tahay maxaad professorkayga qaaliga xildhibaankayga wasiirka soo maray aad ogtay walking dictionary-ga ayaan anigu dhihi kara waa qaamuus ummadda Soomaaliyeed wali u nool maxaad dhihi lahayd أولاً وحنا لك السلام يا مدة الصومالية ملك استيجوجان يا حالة كستو كسوجيين مركز هيك واحد ليه المبارك وصلت كل هذا بعيدة يدلك هويو سفير واحد إن شاء الله اللي معك بروفيسور كا إن لأنه يقهر معي لي ماذا عمل كسر يصير طابق الله كسرعيش السجع يا مدام سيد الله كلا الرئيس ما له حي مركو قارس هو عرضي يا معلم كيس منها يقهر مرة أساساً جل الله. وسيلة هاي أنا وحنا إيمان في ريفنج عن رواد وحنا إنن أرمك تأمل نجدا همين دو حفلة يهور مريم مركز إنن هدار ربط. هاد كتر استولار مريم عبد ويقول فهمي دكتور كأبوان كأدي أدو ماتي بروفيسور دلحة. It's my privilege إن المنطق وأكتشوجو نبى واحد لو غش كنا يا عمر بن الخطاب أما سيد عبد الله حسن أما عبد الله العيسى الله ونحرسته مركز وحسي والله ما أنت أدان شو قلا وحضران نقلا لكن واحد سنة وين أنا وين بروفيسور دلحة كلا الله والله وأنا ما ركت أن ما أنت تو إلى هاي لوسي كانت سنة لفرد إنه وحرمنا درين كاجا وحرم ضدكو they want to read from your lips فروريها إن رك صاحبنا هاي ولا لا هو نبنيك كلا وما ركت ماشي سقلبك سكلا صعود إن أنا ما ركت لقاه مغلو dareenkaagii Grand Royal Nairobi doodii kululeed suugaanta iyo xildhibaanada fanka iyo siyaasadda ahaa iyo maantay oo joogno dhulkii hooye gaar ahaan Muqdisho City Plaza Hotel muxuu yahay dareenkaaga professor bismillahir rahmanir rahim runtii horta saaxiib waa ku mahadsantihiin oo aniga laftirkeyga waxaad isaarteen buur aan ka soo degi karin ma waa sida tahay runtii waxaan markuu horeyso maalintan oo ay tahay maalin ciideed oo farxad ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba ay ku ciideen runtii Ramadaankii barakada lahaana in walba asagoo soo gutay oo niyadsan in maanta alxamdulillah annagana kuwaas inagoo ka mid ah inaan maanta saaxiibo qaali ah oo runtii laftirkooda talents oo meelo fara badan dadka ay ka heli karaan oo haddii loo baxo culimaa u diinka oo ay ka heli karaan oo maanta saaxiibkeenna ma aragtay awliya oo asagoo ma aragtay digrigii iyo wacdigii dhinaciisa sidoo kale suugaantiina haddana isagoo marna gabaygiisa tuuranayo aad arkaysaan oo marna majaajilaynayo marna hadda isagoo laftirkiisa diblomacy oo hadana noo ah safiir Soomaaliyeed oo loo magacaabay dal Afrikaan oo runtii aad iyo aad ma aragtay oo culus taa hadana waxaad arkaysaa isagoo gobolka Banaadir marna hadana oo dhex joogo oo khudbaynayo oo asagii tarsan laftirkooda lagu wareerayo talow gudoomiyihii baa isaga amsi waa duqii magaalada marka sida marka bulshada runtii asaga hadba luqadda ay u baahan tahay ee markaas ugu bandhigayo la yaabi maayo marka awliye marka sida uu leeyahay عربته waxay tiraahdaa almaru ala diin khaliili oo waliba oo
marka qaar xikmad bay noqon kartaa ma gartay mar waxa waaye ninka saaxiibkiisa diintiisa uu leeyahay ayaa la yiraahdaa ama meesha Englishka ba ay dadka waa saaxiibadeeda ayaga qurbaha wax badan luqadaasi ma arday adeegsada ay isticmaalaan tell me your friend I'll tell you what you are markii maanta awliya marka aragtid awliya yaa saaxiibo la aho dhaqankan mar waliba oo kiyaabaha Ingiriiska ah yuu ka wataa yaa la wadaaga marka la yiraahdo isla markii awliya waxa la soo helay ilaa ninka asaga aanan ka duwanin ee halka la taagan siyaasadda uu gadaalka taagan yahay oo lugta aan si fiican u soo galin mooyaane saaxiibkeena Cabdi Shiire magartay ciyaar jecel oo abwaan Soomaaliyeed ka sokow misana ah haddii loo baahdo siyaasi ba aragtay aan qarsooneen laakiin dadka u malaynayaan inuusan siyaasi ahayn isla markaasna ah nin bulshada dhinacyo fara badan xigmada uu xambaarsan yahay iyo waqtiga sida asaga cabiraada uu ugu samaynayo dadka ku bartay maanta suugaanta kaliya inuusan ahayn qof sida hadda maanta in badan ee suugaaniyahan ee jirta ama fanaaniin wadciga markaasi la joogo ayagoo aad moodid inaysan la soconin waxa ayaga markaa ay leeyihiin ama in markaasi wax laga gudbay ama wax aan soo baartay dhaweyn ee markaasi inay dhex taagan yihiin badanaaba inkastoo uu meel walba uu fanaanku uu cabiro laakiin waxaa muhiimadaasi ee gaarka ah ee runtii saaxiibkayga Cabdi Shiire maanta haddii dhinaca aqoon iyo cilmi loo baxo hada familka ba iska wada famil wada sidaas marka saaxiibkayga jooqle la yiraahdo marka maartay ciyaar jecel kan ugu maartay ee aad moodid dhaxal looga tagay aad moodid inaanan yani meesha ka marnay ayaa waxaan aad iyo runtii aan oola dhaxsanaa yani xilli oo uu la hadlayay dadka anaga laftirkeen uu na galay xillibaanada hadaan nahay waa runtii saaxiibkan waxa waaye horta hadii dagaal rag uu galo waxa waaye inta fara badan dadku waxay u maleynayaan dagaalkaasi mid lagu kala tagay oo lagu kala guurayo oo dadku oo markaasi ujeedo kaliya cadaawad maahana wax kale aanan gudbinayn inuu dagaalkaasi u yahay laakiin dagaalkiisu wuxuu ahaa dagaal guubaabo oo wuxuu naga soo saarayay laftirka iyaga xillibaanadu hadaan nahay bal waxaan anaga oo dadka bulshada qaarkeed aanan xillibaanadu oo aanan ka aaminsanayn bal haday iyaguna marka laftirkooda waxay u sheegi karaan bal horta markaas si adiga annagana wixii aan marka aan isleenahay waxba tabanaysaan ama waxba maarta xoogaa aad dhaqaajiseen yani wuxuu ahaa ninkii runtii naga soo saaray waa markaas waxaad leedahay ninkan waa macallin marka macallinku ardayga asaga kalaaska uu ku hayo waxa laga yaabaa arday kale oo mustawa aqooneed ama mustawa ma aragtay psychological waxyaabaha uu rabo inuu kordhiyo ama inuu asaga uu weydiyo ama uu sheego oo aanan dhaqso u heli karin marka Cabdi wayga ma aragtay oo macallimiinta xirfadaasi ku takhasusay way of teaching ka horeysa ayaa waxay isku dayaan inay ardayga marka su'aasha uu jambalka u tuuro ma gartay si uu markaasi jawaabta ma gartay ee uu doonayo martay ardayga kale inuu kordhiyo runtii wax weyn buu marna xillibaanadii waa guubaabiyay wuu canaantay runtii wuxuu soo qaatay waxyaabo wadciga markaasi taagnaa maxaa yeelay xayndaabka anaga aan ku jirnay maalintii aniga uu yiri xayndaabkaasi ku odan yihiin sidii xayndaabkaasi looga bixi lahaa waxay noqotay ma garatay injidkeedii la maro hadda waa ka maanta saxari ka ugu goosaday anagu amugooy ka buskicinayna ma garatay marka waxa weeye Cabdi runtii waa uga mahad celinayaa runtii waana team ahaan waliba dhalinyarada ee maanta isaga ay isku xiran yihiin rag aqoon leh oo qiiro leh oo markay haddana military ay matilayaan ama hees military ay qaadayaan commandoski waxa leedahay cali boobay miya ma gartay jawaabtu sama abayna jawaabtu wada waka markay ayaga ee maartay Maryam Mursal iyo ayaga joqla iyo ragga iyo qomaal iyo heesti kale ayaga ay qaadayaan ee maartay ee wadankii lagu noqdo dalkeena miya ma gartay dawladnima iftiimaysa yani waxa ku gelinaysa yani ninka sida wada jacaylka marka runtii ninka wadaniga ninkaas oo kale marka uu yahay hatta marka adiga uu ku weerarayo waa haka badiyo faraska ayaa loo tabarubi wax loogu qabtaa maana ninkan inuu adiga ku garaacayo maaha ninkan waxa way wuxuu leeyahay meeshii hal laga sii socdo maxaa loo fadhiyaa marka taana runtii waa ku badalinaya aad baan maadaama aanu commentatorkii aan ahay waliba waxaan ogeyn
hadda ka hor nimankan waa la socotaa yarka dhalinyarada oo waxay sameeyaan oo taaqir culimada oo dhalinyarada yarka waxa la sameeyaa wax ka faan jecel marka maalin baa mid masaaj ku jira labadooda soo gasho wuxuu yiri Allah ma sha Allah ina ka yarka markastood aragto masaajkaas ku jira kii kale wuxuu yiri ku jira wax kaga daran ama salaad ku jira ama kutub akhriya ma sha Allah wax ka daran buu yiri salaad haduu ku jiro sujuud hal saac ku jiraya waxa ka sii daran buu yiri marka uu ku jiro oo la jaarayo quraanka sida uu tartiibta u akhrinayo quraanka waxa ka sii tartiib ha faano dhan markii loo dhameeyay oo wax walba loo dhameeyay soo jeestiyo barakallahu fiika waliba waa soomanahay hadda ku darso markay taas banaanka hadana waa doctor yeah you see that's why waa loo heeraa sida waxa ka dhigay talent jaamacada waa weyn wadanka marka waxa weyn waa doctor waana fanaan caadi ma fanaan caadi ma waa qoyaan marka soo dhawow waqtiga uu yardarti waxaan oran lahaa idinka yiri ما كاميرادو عبد القامية there is no escape بروفيسور دلحة بروفيسور اسمه اللي يرادو مايكل جاكسون وفنان كان لوجو لعق بالناس ما توقع له متقانا ما أنتوا عندكم كومنتاتور كإيمان يا مركزولي يعني نيكي مايكل جاكسون أدويو دقة يا سيدا كون بامبا لوجو كون دولار كون يشم $100 مركز سوق لبقيق أنت وحلاش ده أيوة لا ينامين أمين فيه وأنا بحب مقطع تذكر فيه وعلى هو شافوري مقطع مركب كمية لين عبدي هاتي برانكم ما أنت واحد يصير هذا هرتا لايف is unpredictable وحان أنا كهلا يا 10 years 20 years 50 years مركب دوا جبنت أبورك أنت حلوة أي نجارتي وعلى دينا مركب واحد كنت واحد أقول له بروفيسور كاي dadka qaar baa waxa isaga qaldan markaanu ka hadlaynay suugaantan aduu dadka ku wacyigelinayno aan naqalaad oo tabliiq wadaniya xilwaanada nala gashay ujeedada waxay ahayd dad fiicanna waa ku jireen dadaan macnaha duraynana waa ku jireen kuma jiro laakiin xildhibaanka ka hadlo waxa weeye waxa gudurka geeyo jeedada lagu baxashaa ka badi weeyahay waxaan macnaha maanta halka la joogo baan saadalnay iyo muuqanahay marka dhinac kale waxaan ka lahaa wada xustaayo markaan heesti 4.5 aan tirnay ina professor dalxo kala ay muuqdo runtii markaan la banaadir professor dalxo kala barba ma buuxan mise waa boqolow dadku baaxdan dheeriye marka taa kuma soo koobi karno waqtiga uu yiri clipkon leenahay macnaha uga faa'iideeyo ummadda mooyaan anaga asxaabta ayaan leenahay marka aad baan kaaga mahadcelinayaa professor dalxo waqtiga qalin oo nasiisay waxaan ilaaha awoodda ka baryaynaa maalmo kale waxaan sidoo kale aniga laftirkayga sida uu noo jecel yahay oo guwaamad dhinacaas uu nooga siinay fanaaniinta laftirkayga fanaaniinta kuwada ma kuwan aan u dalaa asiga laftirkiisa uu og yahay baarlamaanka dhan wada daarayna qolo yar xoogaa yar qolada kuraasta tuurta markii uu cabdi tiriyay heeska xildhibaanka waxa jiray professor midaan tiriyay anigu oo la yiraahdo heeska oo la yiraahdo aad uu adag iyo strong u yahay لكن ما زوان ما هذا تكتلي يا حين بدأ شغله حلقة رادين يسوع حقد يدب دقة منه لقى حق بتشاكر وانت صرنا وجدت عليه عيد مبارك